waxaan isku nimid inaan maaragtay anagoo dawladda Ingiriiska matalayna inaan gaari ku wareejino baawur ku wareejino dawladdeena Soomaaliland oo uu horseed u yahay wasiirkeenan arrimaha gudaha iyo taliyaha booliiska saacad wasiir anoo ku hadlay afka kambaniga Axiom International oo hoos yimaada xafiiska FCO waxaan doonaynaa inaan 5 baawur aan idinku soo wareejino 2 xaajiyadood iyo 3 hartab oo lagu talagalay public order-ka baawurtaas oo muddo fiican idin socon doonta oo idin shaqeyn doonta baawurta haddaan xogtooda idin siino saacad wasiir waxa weeye 2017 ayay 5 yihiin waa baawur wakaaladeed oo si wanaagsan loo soo qalabeeyay qalabkoodii iyo isbeerkoodii wada wata. Good morning, Minister, Police Commissioner. It's very pleased to be here today to hand over the 3 public order vehicles and 2 vehicles for the Somaliland Counter-Terrorism Unit. waxaa farxad weyn noo ah in saaka iyadoo wasiirkii wasaaradda arrimaha gudaha nala joogo ciidanka booliiska lagu wareejiyo yacni waxyaalaha ay ka caawiyaan ee ay ka taageeraan ciidanka booliiska Somaliland dawladda UK oo iyagoo horena gaadiid u keenay sidaa uu Philip sheegay hayrku wadarkan iyaga dhisay oo maalgeliyay waxa kaloo dhawaan qorshaysan hadii la yiraahdo sida uu sheegayo inay dhisaan academy saraakiisha booliisku leeyahay si dhaqso hadii la yiraahdo loo bilaabi doono bilahan soo socda baabuurtani waxay kaga duwayeen 3 baabuur hore dawladda Ingiriisku ay ku caawisay ciidanka ka hortagga rabshadaha waxay kaga duwan yihiin waxa weeye dib baa dhisay loogu sameeyay si aan dhagaxu waayo kuwii hore waa arag laga qaatay si aan dhagaxu aanu gaariga u gaadhin wuxuu yeelin oo uu safe u ahaado gaarigu waxyaalo badan bay kaga duwan yihiin aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa caawimada ay siiyaan waxaana saaxiibkay Philip ka codsanayaa haddii aan la yiraahdo inay deynta ka kordhin doonaan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa hadday dhismatay hadday gaadiitay hadday qalabka tahay kale ay ciidanka booliiska aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda arrimaha gudaha iyo ciidanka booliiska Somaliland iyo dawladda Somaliland dawladda Ingiriiska macaawinadan gaadiidka ah ee ay ugu deeqday ciidamada booliiska jamhuuriyadda Somaliland ayada oo horeba dawladda Ingiriiska xafiiska FCO ee halkan jooga ay dhammaantood wada shaqayn aad iyo aad u wanaagsan ay leeyihiin qayb weynna ay ka qaataan kaalmada iyo mucaawanada maxaanku dhahdaay ciidanka booliiska aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa